iga sheega hadda iyo ka iga sheegi doono iyo ka damacsan inuu iga sheego iyo ka maanta aysan niyadiisa ku jirin inuu wax iga sheego laakiin the future inuu iga sheega laga yaabo ilaahay amarkiis waxa haddaan dhintana cafisa iga tihiin xataa haddaan dhinto anuu qabri ku jiro qofka wax iga sheego waa cafiyey annaga naftirkeena oo maqlayna gabadhaas maxaa la dhahaa cafiskaas ay bixinayso mararka qaarkood saan oo kale u qor gabadhaan mar hore oo cishiisa tukada ummadda gacanta mariyo iska cafiya qofkaas oo mood adduun iyo aakhira buu liibaanaa teeda kale cafiska aan cafinayana ma aha wax ayaga aan ugu danaynayo waxaan u cafinayaa anigaa dantayda wata because haddaan dadku seexdo anay dan iigu jirin cugdadan ku seexdo wallaahi calooshaadoo saarqo oo nadiifa hadday ta tukatid ducaysad seexatid allahumma baq ilaahayna wuu kuu naxariisanayaa calooshaadana alxamdulillah wad qabowsaa teeda kale dadkaan aniga favor badan sameeyaan abaal badan aan u hayaa especially dadka aniga iyo caaya oo meelaha iga soo furta inta isku dhacsanahay dee waaba isku dhacsanoo caybaa naga dhexaysa laakiin dadkaana aqoono hiilada ama qabyaalad ha noqoto ama faraha saaxiibtinimo ha noqoto sida dhalinyarta badanaa sida hadda ayuu kaarlo kale xal wuxuu yidhi daahir intaa u hiilinaya niciimo adig kaa hiilinayay saaxiibtinimo iga ahayd u dhah mawti dadka ay saaxiibtinimada ka tahay iyo dadka ay ka tahay qabyaalada labadaba sababta aan macnaha idin leeya faa'iida iigu jirto damba iigu jirto inay caayaan waxay tahay because dembiga iga dhaqdaan aniga waxaan qof bini aadana waa iska shaqaystaa waxbaan qaldi karaa lacag baa isoo raaci karta anaa qof lacag iga raaci kartaa aniga dembi geli kara bini aadana ahay wax un baa iga dhacaaya dembiyadaas oo dhan baa iga dhaqdaan dan weyn baa ii haysaan shaqa ii haysaan thank you guys maasha allah way ku xajinooyaan adoo gurigaaga joogo aa lagu xajinaa ilaahu wax naga sheega hanoo weynanaa lagu ducaystaa niciimo haddaa ogtahay haddii kale adigune dadaaba ku duceysta waxaan wax siina ilaahu noo waan baa lagu ducaystaa ilaahay waxaan wax siinana nooma waayo waxna sheegana nooma waayo qofkuna ma aragtay qabiil la sheegaya haddaa aragtid ama qof la sheegaya haddaa aragtid waxaa waaye waa qof jiro dad oo dhintay oo la iloobaa jiro iyo dad dhintay oo maalin walba la sito waa lagu sita mataqaanaa qofta dhimatay ee maalin walba la sito kartiyo uga tegay adduunyada karti iyo magac iyo maalo uga tegay qofkana waxaa waaye maalintii ilaahay heybad oo bixiyo waa inay magacaaga intaasoo milyan ee barato ilaahaa bixiyo aadana ma bixiyo mafahmay qofna wanaagay kugu baranaysaa qofna xumaanay wadaysaa qof wanaagay kugu taageeraysaa marka waxa ilaahay wuxuu fiirinaa qof walbo sidoo kuula dhaqmaayo fiirinaa anaga bila aadanaa nahay message aan magac soo qarsano aan guri kaa dhex xamano aan wax kasta halagu sameeyo waxaas dhan way diyaarsan yihiin xagga allah khayra kuu jira adigu sabar أنا مر والبنا وعدها قف والبو هالصبر وقولي سنة إن شاء الله إلهي قروح بدنا وكسينا عمر دير وكسينا عافي ماذا وكسينا واي هدا ما أنت دنكو عاي عافي ما درن لدرس الدنيا أقربه نايا هدا كور دمطي إن لقاقي شيكي ما أقاني مركي قبري قادي هذين كستوحا كبي حجري هولا كبي حجري دب ما أكتاه صح naagti marka maalintii dambe dadka dariska iyo way yaabeen maxaa qabrigan daba habeen kasta waxa ka baxa holac marka qabrigaas qabri kale u dhow qabrigaas kale gabar kale iskale nuura ka baxa nuura ka baxaya maasha Allah markii dambe waxa loo tagay labadii gabdhood familadoodii loo kala tagay waxa la yiri qoftan maxay sameyn jirtay gabadhan qabrigeeda uu holac ka baxo markaas la dhahay gabadhaas waxay ahaan jirtay dadka beenta ka sheega beenta ka faafiya ceeb dusha ka saara intaas macnaha dadka dhibaatadooda macnaha ka shaqeey ahayd gabadha kale la weydiiyay waxa la yiri gabadhan waxay gabadh iska labisato oo ma aragtay magaaladeeda martoode umada afkeeda ka nabad galaan ahayd macnaha oo laga nabad galo marka waxay halkaas ku tusaysaa qofka bini aadanka ah asaga la weeraro waxa dadku waxay kala yihiin ma fahansana subject iyo object kala yihiin yeela iyo la yeelay dadka kala yihiin soomaalida hal dabeecad ay leedahay qoftan sheekeen uu kor qabsatay hadda iga tagtay aniga kasan daalay bade qofka sheekada uu kor qabsado qofkee waa shuushuya labadooda ma aqaan wallahi labadoodaba qofaa waramays qofaa waxaa ii soo qoraysa shuushow tolkaaga kala qabso insha allah ilaahay dhexdooda biyo qabow ha dhig meeshaan waxaa u imaada qaraaxo iyo qusul ha iga qasin waana mahadsantaa
meesha waxaa u imaaday qosol iyo qaraaxa u imaaday ma kaste ninkii wanaagsanaa walaalkee ee ninkii isfahmayna oo ammaanka helaya walaalkee eh raali ah xumaana والله Soomaalida hal mar ay sameynay laba qof adiga waligaa ma aragto Soomaalida qof meel iska fadhiyo oo aamusana qof u imaanay moogtahay qofkii dharbaaxa qof ku dhufanay qofkii oo kursigiisa ka dhicay kicin ma aragtay qofkii dharbaaxada qof ku dhuftay waa in la qabto Soomaa qofkii kale oo meesha fadhiyana laba qof oo kale isku duubaysaba sida inuu joog fariiso joog aamus been kursigiisa kama kicin yaa wali qofkii aba laga qabanaaba fadhiyay kii kalena waa laga qabanaa waxay kaloo yaqaanaan qof caynaya ama maagaya qofkii kale loo imaana kala jooga ka aamus asna qofkan ha ka aamuso adi waxa isleedahay ma waalan tahay mise dadkaana waalan because adiga maba hadlooysid ileen ma ogtahay still dad ba marka Soomaalida ma yaqaanaan xaqa ma yaqaanaan waliga Allah Soomaali xaq ha ka sugin maba ka hadlaan ba xaqa xaq ma ka hadlayaan Soomaali qofka wal fiirna xataa hadda ka hor sheeka aan qof uga sheekay gabara iyadoo qaawano si ma aragtay heesaysa moogtahay gabar caayaysa u soo galay marka si u caynaysay naagtaan xunta fiirina waxaan najaasada wasakh waaye ala naagtaan oo kale adduunka ku nool dadse isku qaawisay naaseed waa loo jeedaa fiir rajabeetada xiratay naagtaan aan naceebaysay akhas war waxaan maxay tahay Soomaali miya ala qabiilka ka dhalatay dib qab waa fiiriyay marka gabadha ay caynayso isku qabiil waaye صح عبار من كان جوا حنقول أو قبل عن المقدرة بتيجيني maxaa ku haysataa oo hebel ala dhaayna hebel waaye maxay tiri ma taqaanaa way baxday waxbaan sameysanaynay cabaar kadib ku tahay wallahi gabadhan aniga iska dhaadhiciyay saaid uma qaawanaba in adeernimada waa maleena waxaan ama mara baroona xiran tahay naaseed ma waxaas wax baroona ama ugu jiraan way isbedeshay waanaagta hadda dheysnaanta waa qaawantaya waaysi adi ma dhino waa in adeerta ina adeerku waxa ogaaday qof ka gardaran marka hore waxa la leeyahay war qofkan qofka uu dulminaya war dulmi badana cabaar kadib la leeyahay wallahi qofka wax dulminaya qabiilkaas waay waa run waa laga gardaran yahay bas tarbiigay qofkii kale aan soo dilay marka waaba yaan yuurtaan ay dadka la yaabay yaanyuurta Nicimo Joker aniga waa idin sheeg waa cilmi socdo libaaxa leerta jiifa hadaa maqli jirteen sheekadu way ka bedeshay yaanyuurta leerta jiifta imaad ma fahanteen marka yaanyuur kasta waxay isku sheegtay libaax marka maadaama yaanyuur kasta balaaye iska dhigtay oo ay dhahday sharaf isku soo yeesho intay qamaar soo xirato social media soo gashay oo TikTok inta la imaaday Nicimo Joker oo aan la gaari karin la isku dheerinayo hadda anigu waxa weeyaan walaalo waa la dhahayo yaanyuuraha libaaxyada isku malayaan aniga usoo dhigay mukulaashaas waxaa la dhahay bisada midabkeeda ma aragtay libaaxa uu eg yahay mar walba libaaxa ismooda baqashii fardala daaqdana mataalkooda ismooda sayid maxamed cabdullaahi xasan wuxuu yiri inaan jabay waxa lagu gartaa buu dhahay caqli yar naag kasto autism ahayd oo caqli yarida aan la yaabi jirtay baa waxay isku dayaysaa inay credit kugu qaadato moogta dhibca ka gurato waa iga daran walaalay adoo qoslay aad dadka jaqaysaa naag kasto autism ma aragto autism oo ilaah baan ku dhaartay ay isleedahay tan hadii ay musqusha loo tilmaaminay ayadu gasho nasiib bay leedahay ba inta meel ku soo fariisato waxay ku leedahay waxa weeye Nicimo Joker this waa yaabaysa waxa isleedahay are you fucking serious soo dhawaada soo dhawo macaani gabdho labis badana soo dhawaada dhar cad leh soo dhawaada quruxda dumar aniga waa qofkaas aad iyo aad gabadha laba sime way ka dheer tahay muna Puntland soo dhawo baay malaaqadu dhashay baa meesha ii saaran laandheeraha ahayd Shuushu Cabdi de malaaqada lagama daba hadli karo always isku ogta soo dhawaada maanta dhan xitaa committee-gan kugu soo qoray abbaay gabdhahaas ogo waa ku dhahay gabadha Shuushu la dhahayo gabar la dhahayo wallahi milyuun rooble waxay tahay China gabar la dhahayo milyuun
أباي والله قبلهاس أنا gabdhaha abgaal nasab dhalay wallaahi gabdhaha abgaal oo social media caanka ka ah nasab dhalay abaal badan ay ugu leeyihiin waa run أنا واحد دايما تقانا تشوكر أنا واحد دايما تقانا ضدك ودنا واحد قبيل اسكور ريحة قبيل راح أنا واحد هذا اللي قبل أنا أمشي هذا أنا هاي أبقال بابا ما قرنيس أنا أبقال بابا اسكو واحد درسنا مثلا مرة أبقال هذا أنا نتاعي ولكن بان اسكو درسنا جرني MJ سياسة وايس ودنا دينع سياسة حتى نعم تشوكر إن هذا الوقت سلام والله إن هذا ما راح نو سارنتي ما شاء الله sidoo kale thank you hala dhaw arun alla gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waa لكن walaalihii شو شرط رابطي ما لقويا هذه حبيبتي هور may wallaahi aniga abgaal dhala aan laba qabiila abgaalka igu soo gasho oo ayeeyaashay dambe ma fahant waa xawaadle iyo shiiqaal aniga ayada reeyaye isku nahay de xawaadle dhinaciisa waa isla wadaagnaa aniga iyo bar madaxweynaan bay dhalay ayeeyaashu waa isla nahay dhinaca hooyada ayeeyaashu hooyada guud cadday war aabahay hooyadiis hooyada dhashaa xawaadle ah aabahay aabiis hooyada dhashana waa shiiqaal inta kale abgaalan ka ah أبقال عسما والله أباي بقرتويا waxaa mudantiin kolo maalintii xunta qofka hiilka ku gala waa dareemaysaa maahano aniga weligeyba waa iska sita wallahi naciim weligey maxay ahayd sanadkii ayaantii hadda dagaalka intuu soo bilaaban kii ka horeeyay xataa naciima u soo baraanburay waayo aniga gabar Soomaaliyeed ahay gabar Soomaaliyeed oo dhanna waa walaalo joker inaa u dhintaan rabaa gabadh u horeyso joker u dhimatay inaan noqdaan rabaa الله إلهي مايا منو يهنا شكل أرمي منو إلهي تمدي معك أنا قاعد من وحنا ويسكت معنا أنا بايو هذا الكوحاوي والله بالله فكيشن ما جوك تصور كاس مركو صارن إن هذا إيل بانشوغا ما شاء الله مركا ما شاء الله it's beautiful city ما شاء الله